وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaalkay boodhari soo dhawow dhammaantiin soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. axmed iimaan axmed imraan aad baan kuu soo dhaweynayaa, aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa. sorry ugu dhacay. noolaada KDS midnimo qaran aad baan idin salaamayaa. amaal cumar walaashay qaali ah soo dhawow amaal. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وأسلام يا أمة الصومالية ملكستو أجوكتان الدون كان دعا لديسة وولاش من مجيجي وحان كروها كان كسلام يا دمان من نمقرن برشدة من نمقرن ودنياش الصوماليات سوي ما دي بيج كان وحان ربعاو إنان حوغاير إنو تاتابتو وحان صوت ديار صدي معها لكن ما أنت أنا إسكفر دي أي يقصود عضي قومية أنا هاي صومالي قومية أي تاي أنا ربعنا ما أنت كهالله وحن ليابي ومرمرك قاركود ولكن بودر آد بنكو سلامية ودني أبوان نولو دمانتي ويدين جدا آد بندين سلامية وحا يقصود عضي ما أنت أنا إسكفر دي قف صومالي هدين لحيرو oo adduunkan meel kasta uu joogo xabsi ku galo waxa la dhahaa markaad meesha tagtid oo raadinaysid qoomiyadu yahay lagu weydiinaya ilaahuma Mareykan kasta ahaatid ilaahuma cadaan kasta wax kasta meel kasta aad ka timaadid diin kasta haysatid Afrikaanka xaqu ka imaado Soomaali badii baan ku rogmanay oo waxa doon baa dhacaysa waxa la leeyahay 200 oo qof oo Soomaaliya la socotay meel baa dhalinyaro lagu xirayaa waxa la leeyahay 400 oo dhalinyaro ah iyo Soomaaliya ayaa la celiyay meel kale taa waxa ka dhacayo dadku dhimanayaan ama qarax ambaalka waxa dhayaa 200 Soomaali ama 50 Soomaali ama 20 Soomaali ah ku dhimatay hal qof oo Soomaali ah meel anyway wax ka sameeyay waxa la leeyahay qof Soomaali ayaa ka sameeyay wali dhagahaygu ma maqal qof qabiil hebel aha wax ka sameeyay wali dhagahayguna ma maqal reerkii lugta dheeraa ama maxay tahay whatever dheeraa qof kamid ah ayaa la xiray ama qof kamid ah ayaa badda ku dhintay hadduu ka yimaado qofka Soomaaliga ah hadduu ka yimaado meel kasta oo adduunyadan maxay tahay uu rabo inuu aado meel ama tahriib ha aado dhalinyaradeen iyo kale tahriib bay ku dhamaadeen
meel kasta oo uu rabo inuu aado oo uu maxay tahay niyeysto inuu aado wuxuu u aadayaa asa Soomaali wuxuu u tahriibayaa asagoo Soomaali ah oo wadankiisii Soomaaliya dhibaato ka jirto ay ka jirto civil war iyo dadkii Soomaalida oo islaayay meel kasta oo ay wax ka abligareynayaan xataa oo wax ka waxreeraysanayaan waxay ku abligareeyaan xataa qaxootiyada qof Soomaali oo qaxooti ah meel kasta oo aan adduunka joogno ama baasaboorka lagu qabto waxa lagu qabanayaa si kasta oo aad u tahay dhalad ama wadankii aad dhalasho u haysatid waxa lagu baarayaa qof Soomaali ahaan walaal maanta waan fakiray kaligay anoo ahoo shaqada ku jira ayaa waxaan ka fakiray Soomaali inta kaliya wax ma ka qaadan weyday haddaan nahay dad caqli leh oo damiir leh oo dadnimo leh oo dhaqdhaqaaq maskaxiyan ay xataa ku jirto maxay tahay ilaahay maskaxda uu noo sameeyay xataa ay boolal ka shaqeynayaan xataa taa kaliya ma ka fakari weyne war adduunyadan meel kasta oo aad soo martaan Soomaaliyeed ama aadaan ama aad maxay tahay risq u raadsataan ama aad qaxooti ku martaan ama aad whatever ku tagtaan oo wadankaaga u soo baneys kayfi hooyo aamus meel kasta iga raali noqda meel kasta oo aad tagtid waxaad u tagaysaa ama u aadaysaa asa Soomaali qof ku dhahayo qabiilkaaga kii saramiya kii oo maxay tahay state hebel oo caanka ahaa miya ma jiro meel kasta oo aad ka tagtid adduunyada kana lagu yaqaanaa wax kale oo ku yaqaana adduunka ku yaqaana caalamada badan oo aad soo jarjarateen oo maryaha aad soo tolateen oo lacagta ku dhameyseen wax idin yaqaana ma jirto Soomaali maxamedey waxaan maanta ani ka fakiray dadkeenu meena xataa caqli inta kaliya ay wax ku qaataan ayna lahayn marka inagu qoomiyad nahay qoomiyad Soomaaliyeed baan nahay qoomiyada Soomaaliyeedna waxa loo yaqaanaa hal qoomiyad meel kasta oo adduunka aad martid qoomiyadii Soomaaliga tahay Sacuudiga hadaa joogtid qoomiyadii Soomaaliga tahay Italy hadaa joogtid qoomiyadii Soomaaliga tahay waxa qabiilkan baase aan isku baabi'inay ee aan isku dhameynay ee aan u rogmanay ee boqolaalka sano dadkeeni iyo dalkeeni maxay tahay dhowr iyo 20 sano qaatay wax noo yaqaana ama credit nagu siinaya ama dhahaya good job aa sameyseen ma jirto annagina sharafteeni meel aan uga dhacnay dadnimadeeni meel aan uga dhacnay nationkeeni meel aan uga dhacnay ummadii Soomaaliyeed ee qiimaha iyo qadarinta lahayd ee maxay tahay loo soo halgamay maxay tahay u soo halgameen abwaaniin iyo wadaniyaal iyo maxay tahay waxgarad iyo geesi miiran ay u soo halgameen dhulka ayaan la dhacnay Soomaaliyeed dhulkaan ku garaacnay waxaan ka dhignay sharaf la'aan waxaan ka dhignay magac la'aan waxaan ka dhignay dhulkeeni in ay noqoto dhulkii adduunka ugu barwaaqada badnaa bal eeg yaa ugu barwaaqada badnaa ee adduunidan dacaladeeda meel kasta laga sheegay ee ugu maxay tahay dabiiciga badnaa ee ugu qiimaha badnaa inuu sadad haysanin because adaa reer hebel iyo ana reer hebel ah because adaa qolada sare ah because adaa maxay tahay qolada la qiimeynayo la yaqaano whatever ay iska dhaadhicisay adduunyadan gadaasheeda you are nothing you zero wallahi inaada waxba ahayn waxa lagu yaqaanaa dadka qaaqaawan oo animalka oo maxay tahay oo la dhaho qaaqaawin up to now dad baa jira 2017 qaaqaawan kuwaasi waa anaga caqli badan yihiin Soomaali waa ka caqli badan yihiin Soomaali ay aniga hadda marmarka qaarkood ciila wuxuu iga keenaa inaan dhaho Soomaali caqli xun magaca Soomaali caqli xun years ago waxaan xasuustaa inaan meel ku qoray oo hadda dhow aan arkay dad like soo saarayo dhowr sano ka hor bay ahayd magaca Soomaali caqli xun waxaan u irinaa waxaan ilawnay nationkii aan ahayn waxaan ilawnay wadankeeni ilaahayna siiyay ciideeni ilaahay nagu beeray ee adduunkan dacaladiisa wada barwaaqada ahayd ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala umada qaarkeed uuna siinin oo darisadeena qaarkood ayna haysanin ayaan ilawnay waxa kaliya aan haysano waxay tahay waxaan kaliya aan eegayna waxay tahay oo aan u qaadanay inay tahay inaga dhaxalkii awoogeen ama maxay tahay aan u qaadanay inay tahay waxa adduunka inoogu fiican inaan qabiil isku kala riixino inaan qabiil isku kala riixino aan dhaano aduu kan saraatay anu kan hoosaanahay aduu kan maalkeeta adaa balaayaha ana baalkiya marka haddaad u fiirsatid oo marmarka qaarkood aad tiraahdo xataa daraasad ku sameeysid aad tiraahid what's going on dadkaygi maxaa ku dhacay nationkaygi maxay u rogmadeen maxaa ku dhacay maxaa saa noo galay haddaa is tiraahid wallaahi oo billaahi waxaa kuu soo haraysa dadkeena zero inay yihiin caqli maskaxdii dhammayd oo shaqayn lahayd adduunyada kale caqli baan u leenahay waa iska gadayna oo u libsanayna waxaan rabnaa inay naqaabilaan waxayna laakiin annaga dhinaceeni waxaan ka noqonay zero walaalayaal Soomaaliyeed dhammaan waxaan la hadlay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto dhammaan waxaan la hadlaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogto caqligii dadkeena iyo dalkeena waa dhalinyaro inaad soo celisaan ummadda Soomaaliyeed waa inaad ka weynaataan mugdiga aad ku jirtaan oo 27 years bilaa leerka aad dhex rudaan waa inaad ka weynaataan mugdiga aad ku jirtaan
رقبة أوصو دقالمي أيضاً لير جيرين أو كورنتا جيرين أو maxay haytay ay sirin aynan isgaarsiin jirinin oo aan diyaarada jirin oo aan waxba jirin rag baa caqligooda iyo maskaxdooda Soomaalinimada usoo dagaalamay magaca Soomaaliyeed ku keenay dhulka Soomaaliyeed ugu soo halgamay ciideena iyo calankeena dad baa inoo prepare gareeyay laakiin dadka 28 sano la soo dhoof hadda la soo dhaafay maxay tahay Soomaalida ah waa Soomaali si kala ah because waxaan u arkay anigu Soomaali xataa aan fakarayn inay tahay because qofku markuu fakarayo 28 sano wax kuma qaataan nation dhan oo fakaraya 28 sano wax kuma qaataan nationku haduu fakarayana nationku haduu fakarayana maxay haytay ma gaaro maanta meeshay gaareen maanta meeshaan gaarnay ma gaarneen waxaan arki lahayn mar hore inaan sidaan maanta u hadlayno oo u qaylinayno oo maanta wadaniyaal xataa soo baxayo hadlayo very active ah systemka kuwa aan u leenahay kulligeen inaan wada hadalno inaan wada qaylino in aan mataqaana u dagaalano waxa waajibka ah waajibku wuxuu yahay ciidii Ilaahay nagu beeray iyo calankeeni Soomaaliyeed iyo wadankeeni inaanan walaalayaal ilaabinin inaan u dagaalano inaan ciideena sharafta u dhowrno inaan calankeena ciida ka qaadno dhulka lagu garaacay aan ka qaadno dhulka ayaa calankeena lagu garaacay waa inaan ka qaadno walaalayaal waxyar biyaan cabaayay raal noqon aad baan kugu mahad celinayaa dhamaantiin boodariga aad baan ku salaamayaa Soomaali aad baan ku salaamayaa muuse dhamaantiin walaalayaal waan salaamayaa Ilaahay ha idin jeclaado thank you والله فاطمة قاسن هاستيدي أمريكان دقيستو قلبضة أيا إيقا حنونتا إلهي هاو نحرس رب الرحمن إلهي هاو نحرستو ودن كين هليال بدن با كجري هليان بدن با أصوى دقالمي هليان بدن با إلا هذا النول كعدون كدلينتا سوماليات بحيث جروبيدي الصوماليات أو ودني قبيلة ديد دلنيرة الصوماليات أو ولكن بودري كمدي هاي محمد صومالي كمدي هاي ولي dadkeeni ilaa xadka aan uga qalbi jabno uga qalbi xumaano uga qalbi naxnay dad badan oo nool ba ku jira ilaahay waxaan ka baryaa ummadeena inuu ilaahay soo hagaajiyo oo xaqa tuso ilaahay inuu xaqa tuso wadankeeni ciideedina before it's too late ilaahay hanaga dhigo kuwii badbaadsada ilaahay hanaga dhigo kuwii wadankoodii iyo ciidoodii u hiiliya walaalayaal ilaahay hanaga dhigo rabbi raxmaan وارنتيس والله ها
والله بالله فاطمة قاسم ما شاء الله هاس بيكتك إلهي سبحانه وتعالى قبر جدها أنور إلهي هؤلاء حريستو والدنيا دي أهل ومدة صومالية والدنيين بدن باكو جرو إن عيد دي علن كذي بكحمد إني كتجيسو حقين جوجا عمل يتري ضد كيجي هدوب بقف دو حايو إن حدنا ولي وحسعته ضد كني هبين إيمانين إن قرح الغدا مينا إن هبين إيمانين لجوبا إن هبين إيمانين ميل الله وده أن جرنين وضد كني قاركود أي شيء هو هذا جيان walaalayaal ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin quraan saar kulligeen aan ku dhaqaaqno sheekada waxaan leeyahay page-keena midnimo qaran waxaan ka hadli doonaa dadkeena meel kasta quraan laga saaro waxaan fanriisan u aruurin doonaa Soomaali quraan la saaro Soomaali quraan saar u baahan tahay taas been ma aha quraan badan ay u baahan tahay Soomaali waxa ayagii isku diray oo ayay kaligood isku dhiibay wax badan baa jiro waxaa jirto ayagii ayaa wax la isugu aasay ayagii ayaa isciirsanaa ayagii ayaa wadankooda ciideedii macaaneed oo lala yaabay oo adduunkii dhan ayna haysan ee ayay ka cararayaan waxa keenayana waa qabiil because adaa qabiil hebel ah ana qabiil hebel ah ana ka sarreeya adaa iga hooseeya waa inta kaliya wax kala ma aha laakiin anu waxaan idin sheegayaa oo aan raba hadda maanta intaan u soo galay waxay tahay hal qoomiyadaan nahay qoomiyada adduunka dhan noo yaqaanaan baan nahay qoomiyadii rabbi noo abuuray ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu qolo walba abuurayo ilaahay qolo walba meel buu ku abuuray ilaahay qolo walbana meel buu maxay tahay magacooda iyo waxooda ku sameeyay ilaahay qoladu abuuray ee nation ku abuuray ee Soomaali aha ee Soomaali Maxamed aha ee Islaamka aha ee Afrikaanka aha ee ahaa dad maxay tahay ma sha Allah kuwaasanahay kuwa kala ma noqonayno cadaana ma noqonayno madowna ma noqonayno qolo kale adduunyadan joogtana ma noqonayno waxa kaliya oo aan nahay oo aan noqon doono waa wixii ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo abuuray oo ahaa qoomiyada ilaahay naga dhigay Soomaali baan nahay Soomaalideeni baa tahay ama Djibouti joog ama maxay tahay kilinka joog ama Gaarisa joog Soomaali waa Soomaali midda kale aan ku faraxsanahay midin sheegaa midda kale aan ku faraxsanahay dad badan taa ma oga laakiin anigu waan ogahay waan dareensanahay waxyaabo waxa jiraan markaan ka fikiro Soomaali siday maanta u baabaasan tahay haddana aan alxamdulillah ku dhaho gumaysi wax kasta oo nala rabay ama wax kasta oo damacsanaa inuu na destroy gareeyo ama na baabi'iyo ama Soomaali magaceeda iyo wadankeeda u baabao laakiin dad cusub ay ku abuurmaan uma hirgelinin maxaa saa u dhahayaa ii sheega waxayna ugu hirgelinin bal eeg dadka Gaarisa ku nool 100% Soomaali waa adduunka u jecel yihiin Soomaali waa 100% Soomaali haddii la dhaho maanta kulli Soomaali usoo noqonaya eeg dadka ku nool kilinka shanaad haddii la dhaho Soomaali 100% waa Soomaali haddii la dhaho maanta wadankiina ku soo noqda caawa go'a haddii la dhaho go'aya Soomaali ku soo noqonayaan they love their people and their country bal fiiri waxaad eegtaa Djibouti wax kasta oo gumaysana nala damcay before haddana dad ilaahay badbaadinayaan oo ilaahay jecel yahay laakiin ayagii shaydaan ka raayay shaydaan baa dhulkana dhigay shaydaan baa ina baabi'iyay shaydaan baa isu keen dhiibay waxa la yiraahdaa qabiil Soomaaliyay hal qoomiyad baan nahay walaalayaal sheerka ilaa binina hal qoomiyad baan nahay halka qoomiyad oo aan nahay qoomiyad sharaf la baan ahayn waxaan haysanaa hal dhaqan hal diin hal af adduunyada laga helataa adduunyada meel ay taa ka jirto ma jirto hadda waxaan diyaar u noqonaynaa haddii ay dhacdo Soomaaliya insha Allah inay noo hagaagto inaan xataa nationkeena sii bato oo aan xataa keeni nationkeena hadduu yahay qof diinteena aan haysanin aan okay dhahno kii aan haysanin muraayaxii soo dhawow aad baan ku salaamaya kii aan haysanin maxay tahay dhaqankeena oo haddana Soomaali ah waa Soomaali waa soo dhaweyneynaa hadda idinku hal baad heshiin weydeen laakiin waxaad heshiin doontaan idinkoo 70 farqa leh oo 70 wadan idinla degan yihiin oo ilmihiina ilmayaal kala sii dhaleen oo maxay tahay qolo kale ku soo milmatay dambaad u yeeri doontaan because adduunkan aan ku noolnahay ee maanta anigu aan ku noolahay ee aan ka shaqeysto ilmaha ku dhalay dadka ku nool waa qolobiil walba waa maxay tahay waa adduunka intii nation jirtay ayaa ku nool Soomaaliyana waxay noqon doontaa idinku hadda qabiil baa isu dileysaan oo idinku walaalihiin baa ximinaysaan oo kuwa maxay tahay kugu dhaqana oo kugu diina oo kugu afa oo adiga ka qurux badan baa liidaysaa dhulka la dhacaysaa oo leedahay maya asagu waa dadka baabaa hoose waa dadka baabaa oo hoose laakiin gabadhaadii ama wiilkaagii ama walaalkaa markuu guursanayo gabar oo Jamaican ah you are happy alla gabar Jamaican oo guursada iyo wiil Jamaican alla ma sha Allah gabadheedu wiil Jamaican ay keentay wiil Jamaican ay keentay maxay tahay gabar Jamaican wiilkii iyo guursanaya laakiin qofka Soomaaliga gabadha biyada hab u eeg Soomaaliga aniga iga qiimo badan oo iga sharaf badan oo iga kartida badan waxaan dhahaynaa reerka iyaga ah way moogtahay ya
laakiin waxaad ogaataan Soomaaliyeey meesha idinku isgaarsiiseen aakhirka hadda dad walaalihiina dambi ka gasheen idinkiina naftiina dambi baa ka gasheen reehebelow soo u socotay idinka dhana isdistrogreeyay wadankii dhana distrograyseen awoogaya dhaxalkiisii baad baabiiseen wadankii ilaahay nagu abuuray ayaa dad kale hunguri ka geliseen oo maxay tahay ilaahay awooyaashan u soo dagaalanba ayaa dad kale u ogolaateen inay maanta ka fikirayaan oo ay ku jirto ajandahooda ajanda inay ku jirto yaa sameeyay ajandaha ma soo gasheen haddii maantayto ay Axmed Gurey iyo Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo intii haliyay Soomaaliyeed haday nool yahay ajandaha kuma soo darsadeen laakiin waxa ajandahaas galiyay ma taqaanaa waa inta Soomaali aqal xun oo hada nool oo adduunka taariikhahan dambe taariikhda mugdiga aan galiyay iyo baalka mugdiga ah intaas waaye inta maxay tahay baalka mugdiga aan gelisay ee aan maxay tahay ummadii Soomaaliyeed baaba iyo balambalka gelisay ee aan ka fikirin hal mar ilaahay wadanku siiyay iyo dadku ilaahay siiyay iyo afka ilaahay siiyay iyo diinta ilaahay siiyay iyo maxay tahay sida ay u yihiin nation kaligood ah oo haddana ilaahay maxay tahay meel fiican ku beeray dhul wada barwaaqa ilaahay ku beeray Soomaaliyeey anigu Soomaali aqal xuna indhahaaya ilaa sida iska dhaantaane maanta meesha aan naalno wallahi haday noolaan lahaayeen nimankii waagii oo waaye ahayd oo xataa la jirin diyaaraduhu haday noolaan lahaayeen mugdiga aan galnay ma galneen waxaan galnay mugdigii ugu dambeeyay foolxumakii ugu dambeysay waxa iga hadalsiiyay oo maalinba meel isoo fadhiisiyay oo live isoo galiyay waxaan u halgamayaa dhalinyaradii anigu qurbaan live-kayga ku dhamaystay baaba baan ku dhamaystay orod baan ku dhamaystay qax baan ku dhamaystay laakiin cunug dambe oo Soomaaliya oo hadda dhalan doona ama mid hadda tan da'yar oo aad u yar ayaan u halgamayaa inuuna marin waxa aniga aan maray iyo rafaadkii cilada waarid la'aan aan ku koray meel cilaa taas ma rabi inay ilmaha dambe oo Soomaaliyeed ay helaan waxaan u halgamayaa dhulka awoogood u soo dagaalamay awoogood dhaxalkiisii ahaa dhulkii ayaga ilaahay ku beeray ee ayaga kaligood nation la'aan ay u ahaayeen in ilaahay subxaanahu wa ta'aala u soo celiyo ayaan ku dadaalayaa aan xoogga saarayaa dhammaantiina walaalayaal waxaan idinku codsanayaa beejka midnimo qaran walaal qabiil ma aha midnimo qaran walaal qabyaalad ma ogola midnimo qaran waa midnimadaadii waa midnimadaydii waa midnimadeennii waa barnaamij aan leenahay kulligeen waa barnaamij ay leedahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogto haddii aadan nala shaqayn xataa nala soco xataa na sheergare xataa niyadda qalbiga inaad wadankaaga u hiilinayso ha kaaga jirto because waxa aan wadno waa hiilo ciideeni iyo calankeeni waa hiilo aan raadinayno dadkeeni inay noo soo maxay tahay wadaniintii Soomaaliyeed inay soo noqdaan waa hiilo aan raadinayno inaan taariikhdeeni dib u barano taariikhaha iskuulada hadda lagu dhigo baaba iyo qabiilka waxaan rabnaa ilmaheena iyo dhalinyaradeena iyo ciyaalka hadda soo laaban doona inaan barno taariikhdii awoowayaasheen taariikhdii aniga aan maxay tahay iskuuladeena lagu dhigi jiray taariikhdii horay maxay tahay walaalahay ugu soo koreen ee wax ugu soo barteen taariikhdii Soomaaliyeed iyo taariikhdii adduunka ugu qiimaha badneed oo la yiri Ingiriiska xataa waxay ku jirtaa maxay tahay museum-kooda taariikhdii Soomaaliyeed oo reality ahayd oo aan 28 sano mugdiga aan galnay ayna ku jirin ayaa rabnaa ilmayaasha dambe iyo kuwa aan dhalnayba kulli inaan barno walaalayaal dhammaantiin waxaan idinku codsanayaa Soomaali Maxameday meel kastoo aad joogtaan nagu soo xirma beejka midnimo qaran waa beejkiini waa barnaamijkiini waa barnaamijkeeni waa barnaamijkaagii kulligeen ayaa iska leh nagu soo xirma nalana dadaala si aan guul u gaarno si aan ula dagaalano qabyaaladda si aan ula dagaalano kala faquuqa si aan ula dagaalano kala qaybqaybsiga si aan Soomaali midnimadeeda xoog u saarno dhammaantiin Jamaal Fuje aadan jaamac Fuje aadan ku salaamaya dhammaantiin midnimo qaran iyo maxay tahay KDS meel kastoo aad joogtaan waan salaamaya in alla inta barnaamijkan nagala soo qaadatay walaalaha iyaga abwaaniinta iyo maxay tahay iyo wariyaasha iyo meel kasta naga soo ka fargareeyay aad baan idinkugu mahad celinayaa aad baan idinkugu mahad celinayaa you guys don't know sidaan wallahi proud idinkugu ahay ilaahay magaciisa ku dhaartay aniga inaan markaan idin arko idinku hadlaayo oo active ah oo dadaalaya it is like inaan wingareeyo lorry wallahi inaan adduunka janno iga dhimin ayna jirnin because waxa aan raadinayno waxay tahay dadkeeni walaalayaal inaan soo celino ummadeeni inaan ka soo celino meesha mugdig ah oo ay gashay oo diinteeni iyo dalkeeni iyo calankeeni aan inta u dagaalano oo inagoo maxay tahay ummad islaamna ilaahay shalay naga dhigay oo maxay tahay ummad isku hal af ilaahay shalay naga dhigay oo ummad isku hal diir ah ilaahay shalay naga dhigay in aan maxay tahay wadankeena anagoo nool oo dhasheena nooshahay aan meel walba shisheeye isku balaarin ama soo degnin ama jeclaysan ama ka fakirin because anaga dad lala yaabay oo adduunka waxba ka ahayn ah
taan ka dagaalamayno oo midnimo qaran u taagan tahayna waa taa midnimo qaran waxay mar walba raadinaysaa waxa weeyaan danta ummadda Soomaaliyeed ee diinteena dalkeena ciideena calankeena sharaftiisa waxaan u taaganahay waa inta supportigiina insha Allah aan wada aragno haddii aad xataa busy tahay page-kayaga noo soo gal nala soco garaadshadana aad baan ku salaamiyaa dhammaantiin walaalayaal waan salaamiyaa aad iyo aad baan idin salaamiyaa dhammaantiin marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dadaalka aan badino dhalinyarada Soomaaliyeed wadaninimada aan badino dadaala annagu waan la dadaalayna idinkana dadaala wax kasta waxay ku yimaadaan adduunyada aan arkaysid internetka hadda idinka dhan aad igala socotaan haddii la rabo ilaa Soomaaliya laga daawanaya haddii la rabo baadiyaha laga daawanaya internetka hadda aad igala socotaan hal wiil oo yar oo cadaan oo 20 sano jira ayaa sameeyay ma 19 buu jiraa u maleynaya markuu sameeyay ayaa sameeyay hadda gelisaan xataa hadda wad heleysaan hadda Google gareysaan wiil yar ayaa alifay iyo saaxiibkiisa wax aan hagaagi karin adduunka wax waa halaabaan waxana waa la hagaajiyaa wixii halaabay waxa laga bartaa maxaa laga helay faa'iido maxaa laga helay qasaaro wixii qasaaradu markay badnaato wixii aad ka baratay qasaaradii faa'iidadii aad isku fiiriso intii wanaaga lahayd ayaa la qaataa wanaagii ayaana la taraagareeyaa in moor lagu sii daro oo wanaagii la sii badiyo si ay ummadii Soomaaliyeed ay u soo laabtaan oo wadankeen u hagaago qof kasta wadanka inuu hagaago damba ugu jirta wallahi damba in kugu jirta hays dhihinina wadamadan dadow aad joogtaan intiina dibadaha ku soo maqan ina hays dhihinina wadamadan dadow aad joogtaan ayaa idinku okay baatiin okay ma tiidin wadanka soo aad joogtid waxa ka tahay immigrant adiga malihid wadankii aad lahayd oo runta ahaa waa ka adi soo cuntay awowgaan u soo dagaalamay adina soo cuntay awowgaan oo u soo dhintay naftiisa u soo waayay adna waa soo burburisay kaasaad leedahay marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan walaalayaal ku dadaala midnimada ummadda Soomaaliyeed la dagaalama qabyaalada isu keenida dadkiina soo dhaweynta dadkiina mideynta ummadda Soomaaliyeed kulligiin ka wada qayb qaata kulligiin waxaan idinku codsanayaa meel kasto aad joogtaan ina u istaagtaan sida dadkiina ku mideyn lahaydeen because dalkiini waa idin baahan yahay ciidiina waa idin baahan tahay diintiina waa idin baahan tahay calankiina waa idin baahan yahay calankiina ciida ka qaada oo calankiina u dhinta oo u ooya oo maxay ta calankiina sharaftiisa ilaalsada because qof kasta calankiisa sharaftiisa waa inuu ilaalsadaa calamadii aan ku dhalanin noloshana siiyay ee qiimaha siiyay oo qadarinta siiyay ayaa adduunka ugu jeclay calankeegii Mareykan waa kan noloshii markay anoo yar iga burburtay at least education waxbarasho maxay tahay shaqo wax walba ila habeeyay aan maanta reerkaygii nolosheed kaas baaban dhulka u quurinin si kii ku dhalatay awoogaa ku dhashay see dhulka ugu quure ciidii ku dhalatay awoogaa ku dhashay see ciida ugu quure seeba dhulkii ilaahay adiga kugu beeray ee ciida ugu quureysaa Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed oo meel kasto aad joogtaan waxaan leeyahay ku yar hadda soo kacay waxaan leeyahay habar yar maskaxdiina galiya ina wadan leedihiin ina dawlad lahaan jirteen in taariikhdiina hore Google-ka ka baara wadankiina idinku qabta wadankiina idinku ilaalsada wadankiina idinku cadawga u diida wadankiina ilmahay dhalayaan hadhowta biri waxa u noqday wadankiina ku dhagaa aan leeyahay Soomaali meel ay joogtaba ciyaalka yarna aan kula dadaan bad inta isku rid lahayd ciidii awoogaaba ka carartay badana waa isku riday maxaa bad isku riday badda maxaa ka jiro badda waa halaag waa waxa weeyaan baddaas waa mid dadkeeni oo dhan qabta oo wax tirsanaya jirin adduunyada laba qof haday ka dhalata ka dhimata hadda Mareykanka aan joogna calankaas dhan la dejinaya oo laba qof aan naga dhimatay annagana dadkayagu ariyullaahi brar waxa darsin u dhintaan wax kala jecelna ma jiraan wax xisaabsanayna ma jiraan wax oo maxay tadhahay Allah ilaahay dad baa naga dhintay ma jiraan dawladeena maanta tana waa dawladda kaliya intaan adduunka saarnaa oo aan Soomaali maqlaayay adduunka intaan saarnaa dawladda kaliya aan arkay iyadoo dhahaysa shicibka Soomaaliyeed waaye shicibka Soomaaliyeed waligay ma maqal horay dhagaygu ma maqal shicibka Soomaaliyeed dalka iyo danka iyo diinta ayagoo dalka iyo danta dadka iyo diinteena wali ma hore uma maqal walaalayaal waxaan leeyahay waxba lagu gaaraa maadaama aan 28 almost 27 baaba ahayn sanadkan maxay tahay khayr iyo maxay tahay farmaajo madaxdeena cusub waxaan u jeednaa chanchigii dhexdayaan laga kala gooynin aan try gareyna inaan guushaas bush gareyno بريسا أي نولشي قدال وبها جابتو because نولشي يعني واحد بدن بيصوبها بأسنايد هل مرة واحد برفقتي نقول عيا مجرتو برفقتي جي إنك إنا رادينو واي إنك أي نقول حرنتا إنا نولشي ونا جيدي رادينو إن شاء الله بالملا كريم نقول وجارينا هدي أن أوجه إنا نيرد عن أركي قاركود أي كتيران محيط برشيد الصوماليات
waxaan aaminsanahay weli sharafteeni weli waxbaa noo dhiman weli maana dhammaan weli haleeyada Soomaaliyeed qaar baa noo nool wax badan oo wanaagsan baa soo socda idinkuna mid kasta oo Soomaaliyeed ha ogaado wadankiisa inuu calankiisa uu ka saaran yahay masuul kaama saarna kan marada oo shala la jirtay meel walba ha ahaatay state walba ciidaadii iyo calankaagii awoowayaasha ku barbaareen ama soo dhiciyeen wuxuu ka mudan yahay mar walba waajib ka saaran waajibkii ka saarna kaliya ka soo bax wax kale ha u qabanin waajibkii alla ku faray oo ahaa diintaada iyo dalkaaga ciidaada ina ilaalisatid ka kaliya ka soo bax waa ina anagii isdaba hadaan inagii wax isu sheeginin qola cadaan inta imaato wax nooma sheegayso walaalayaal horta bal taa ogaad iska dhaadhiciya dad badan baa ani hadda waxay dhahaan maxaa soo galiyay live-ka maxaa laha hadla budhadhado idahan laakiin aniga hadaan hadlin adiga hadaada hadlin inagu hadaan hadlin yaa inoo hadlaya yaa ummadda Soomaaliyeed qaladka ay ku jireen oo tirada badan oo long time ku jireen yaa ka qabanayo yaa wax noo sheegayo yaa qaladkeena saxaayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku yiri dadaal aan kula jiray guul wad gaaraysaa qofku markuu wanaaga ku dadaalo ilaahay wuxuu buu keenin aniga hadaan hadda dadaalo maal baa qayli aan waxba ii hagaagin am sure maxamed Soomaali iyo maxay dad kale taayay wuxuu hagaagi doonaan because more ay sii badato wadaniinimadu waxaan aaminsanahay wadankeena aasaaskii wanaagiisa waay waxaan aaminsanahay dadkeena isu imaashahooda wanaagoodii waay asaaskeedii waay wax walbana meel bay ka bilowdaan wax kastana meel bay ku dhamaadaan ummadda Soomaaliyeed aniga halka waxa soo fadhiyay sharci waan haystaa waana shaqaystaa inta aan Mareykan imidna waa shaqaynayay ana cunug yar ilaa hadda waa shaqaynayay waxa halka soo firiyay waxaan anigu Soomaali uga baahanahay maaha waxa halka soo fadhiisay jecel aan u qabo ummadda Soomaaliyeed iyo I feel disgusting markaan meelaha qaarkood la iiga sheekeeyo Soomaali iyo mataqaan embarrassment markaad meelaha ka tagto oo lagu sheego dadkaaga halka neeshinaha halka afaha halka dhaqanaha halka diinaha sida ay isu galayaan ee isu baabiinayaan ee haddana aan ahayn nasanis wax nasanisa ma aha xataa wax aqli gal ah waxa isku baabiinaysaan waxa isku disheen wax aqli gal ma aha waxa dadkeena ku dhamaaday wax aqli gal ma aha waxa waa waxaan adduunyada ay u arkaan qofkaani dadkaani maxay yihiin aday okay waxay u arkaan dadkan mentally ba dadkan aqliyan maxaa kaga dhacay maskaxdooda xagee aaday marka waxyaabaha qaar markaad ku jirto meel walba oo mitirada qaar iyo meelaha qaar markaad tagto adu arko sida dadkiina loo yasay xataa waxa ku qabanaysa inaadan sheegan nationkii aad jeclayd oo aad ka timid aabaha ku dhashay awowga u soo dagaalamay inaadan sheegan ayaa maxay ku qabanaysa waxa iga qayla siinaya ama iga hadal siinaya walaalayaal waa inta waxa aan maalin walba meel walba idinkaga soo hadlayay oo u buuqayaan idin leeyahay isdaba qabtana waa inta taa maskaxdiina gashta qaar baa Facebook hadda iga soo caayo message iyo soo qoro waxay leeyihiin naama dawlad baarta dawladda Mareykan waa shaqaysta alxamdulillah wallahi alxamdulillah wax maanta iga maqan hadda ka dambe waxaan rabaa inaan seexdo oo retire gareeyo dirin waxaan rabaa nabad intaan helno dadkeenina hal israacay noqdaan jamaama inaan dirin yar dhigtaan rabaa iska seexdo qabyaaladan iyo qashinkan waxaan la wareegaysaa rabaa inay baaba'aan ummadeena akal kaxayseen dhalinyaradeen ama maskaxda ka haleyseen oo xataa jaamacadaha university-ga aan ka soo diyaarin karin toobi qurux badan xataa dadkoodii aan ka soo diyaarin karin oo ayaga dhan markii looga sheekaynahay oh my god kuwaasaan rabaa inay waxay diyaariyaan helaan historiyaashii gadaalna u bartaan historiyaashii ay lahaayeen awoowayaasheen historiyaashii ay lahaayeen nimankii haleeyada ahaa historiyaashii gabdhihii haleeyada ahaa ee Soomaali u soo dagaalamay kuwii wanaaga waday historigooda inay maqlaan baan rabaa because hadda meelay dhalinyarada yareed xataa kama qori karaan waxay xataa paragraph xataa kama soo qori karaan maxay tahay Soomaali maxay tihiin xagee ka timaadeen wadamada nala mid oo kale dhan waa qoraan ilmi yarka laakiin jaamacadaha dhigtay waxay ku leeyihiin oo harana waxaan loo Soomaali maxaan sheegnaa they kill each other they eat each other they maxay tahay dagaal sokay maanta dagaal sokay 27 years gaaray lama arag wadan la dagaalamayo waa la sheegay maxay tahay wadanka diinta ku dagaalamayo oo maxay tahay Falastiin iyo waa la sheegay laakiin 27 years oo la diiday wadan nabad inay ka dhacdo xataa la ogoleen in dawlad la helo oo maxay tahay wadankii dhan laga dhigay corruption iyo maxay tahay baba war Soomaaliya isdaba qabtaa idin dhahaa yaani Soomaaliya isdaba qabtaa wiil kasta oo dadnimo leh iyo gabar kasta oo dadnimo leh iyo in alla inta aniga ay dhaanto halla speak up dadkiina caawiya dadkiina help bay u baahan yihiin waxay u baahan waxaan loo sheego maanta adduunyadu waa hormarto ma dhihi karno waa habeen oo waa jaahiliin ma aha laakiin aqliga ay jaahil ka yihiin ee dadkeena hala daba qabto walaalayaal hadaa xanaaqan iga raali noqda Soomaali jaceyl ah waxaas iga keenayaan walaalayaal aad baan kugu mahad celinaya intiina dhageysanaysa oo maxay taqayladeeda iyo maxay tahay emotionalkayga xoogaa dhageysanaysa waan emotion gareeyaa markaan Soomaali maqlo wallahi beeninayna iga aheeyay run bay iga tahay
weligeyna saasaan ahaa intii aan maxay ta garaadsaday waan yaabi jiro waan ka fikri jiro maxaa ku dhacay dadkeeni wadankeena maxaa ku dhacay dadku goormay sida isu dhaamayaan saan bil sanad walba u sugay isku lahaa sanadkaan ay ficnaanayaan waxaan maqlayaa sanad kasta dawladii dhalata qolaaba uu istaagayso dhahaysa waa inaan burburinaa ilaa wadanka dhan waxa weeyaan import export waa wadan dhan oo laga dhigay inuu maxay tahay usha u kala shaqeeyo only maxay tahay qolooyinka oo wadanka baabi'inaya waa wadan dhan oo laga dhigayba asaga dhanba jiira maafiyadii laga sheegi jiray Talyaaniga taana ma qaadan karno wadanka annagaba waxbaan ka leenahay wadankeeni waaye aayaha ilmaha dambe oo dhalan doono oo maxay tahay dhalan doono hadda koow aan dhalanin ayaan rabnaa inaan raadino mustaqbalka ilmaha aan maanta wali la dhalin ama la dhali doonin ayaan rabnaa inaan raadino wadanka Soomaaliyeed dadkii lahaa ayaa leh wadanka Soomaaliyeed Soomaali baa lahayd waxii lahaana waa inay hadda hurdada ka kacaan waa inay baraarugaan waa inaad qashinkan iyo qabyaaladaan iyo waxaan la kala wareegaysaan laciifka ah ee adduunyada aan kirdidna la ku siinaynin ilaahay dhinaciisana ku liita ee xaq darro badan iyo xumaan badan aad ku soo gasheen baaba iyo balanbalka nageliyay waa inaad ka weynaataan Soomaali Maxamedeyn waa inaad ka weynaataan aniga intaasaan rabaa dar inaan inta aan noolahay sheego intii ka dambeysana insha Allah dadaan ogahay baa sii sheegay dadka sii badan iyo kuwa dhalan doona laakiin kuwa hadda soo dhima dhalan doona iyo kuwa hadda aqliga maxay hadda soo kacay ayaan rabaa inay bartaan taariikhda Soomaaliya waxaan u dagaalamayaa kuwaas inay helaan wixii aniga aan waayay aniga ma helinin laakiin I'm gonna fight for them insha Allah bilmillahi karim guul iyo gobnimo ayaana noo dambeyn doonta page-ka midnimo qaran in alla inta ku jirta in alla inta la xiriirta in alla inta follower ah aad baan idinkugu mahad celinayaa daadmiinis waxay nooga dhigantaa inaad tahay wadan dhalay laakiin la meel uu ka bilaabo taariikhdii wadankiisa iyo maxay tahay horudhici wadankiisa nagu soo xirma naga mid noqda midnimo qaran qof alla qofkii raba inuu la xiriiro sidii uu maxay tahay ku soo gali lahaa waxaad la xiriirtaan garaad shidane waxaad la xiriirtaan wadani dhab ah waxaad la xiriirtaan gentleman waxaad la xiriirtaan maxay tahay walaalkeen ibnu sahal waxaad la xiriiri kartaan kaysa qabyaaladiid waxaad la xiriiri kartaan maxay tahay boodari walaalkeen boodari oo abwaanka taqaanaan oo page-kiisa dad badan ku xiran yihiin qofkii raba inuu soo galo ayaga dhalinyaradaas ula xiriirayaa waa lagu soo darayaa qalbi saalaxa annaga qabiil shaqo kuma lihin ummad isu timid baan nahay waxaan raadinayna ummadii Soomaaliyeed inaan baraarujino wadaniyiintiina inaan badino ciideeni inay noqoto ciidad leeyahay inay noqoto oo aan ka baxno ciid adduunka dhan fiirsanaya oo u tashanaya taasaan rabnaa inaan ka baxno ciidii awooyaashan usoo dhinteen ee ay mugdi habeen ah oo aan jirin layr iyo maxay tahay iyo waxba ay usoo dagaalameen ma rabno inay qolo kale easy very easy because xayawaanaan nahay cawaan baan nahay ilaan ariyullah baraar baan meelaha marayna inay isaga qaataan ma rabno waxaan u dagaalamaynaa qoomiyad Soomaaliyeed baan nahay qoomiyadnimadeeni waa inaan ku joognaa waa inaan ogaanaa inaan hal qoomiyad nahay waa inaan qabiilka meel gadaala ka tuurnaa waa inaan wadanimadeeni iyo ciideeni iyo diinteeni iyo maxay tahay dalkeeni walaalayaal waa inaan soo jeesanaa inta aan leenahay waa inta aan leenahay walaalayaal oo aan raadinayno oo wadani kasta raadinayo Maxamed Soomaali asaga xataa wuxuu ka mid yahay page-kan la xiriir qofkii raba inuu soo galo Maxamed Soomaali xataa uu la xiriiri karaa wiilkeena Maxamed Soomaali oo asaguna page kale kulligeen waxaan rabnaa inaan noqono wadaniinta Soomaaliyeed oo dhan hal meel na isugu imaadaan waxaan rabnaa dadkeeni oo dhan inaan midayno idinkuna garab nagu siiya annaga shil kuma qaadanayno hadda saacadaha aan hadlahay shaqaan ka soo baxay hawl baa isugaysa iska jilkayga waa yaryahay laakiin waxaan rabaa inaan idin dareensiiyo waxa aan ka dagaalamayno iyo waxaan dhibaayo iyo waxaan maxay tahay muddo la'ayn waligay ma arkin wax noo hadlaayo before hadda laakiin alxamdulillah guul baan u jeedaa waa soo badatay anaga dhan aan hadlayno aniga gabdhayga si daran baa hadli doono insha Allah bilmillahi karim waxaan rajaynayaa Soomaali kulligood inay aakhirka isugu soo ururaan midnimo because diinteena ilaahayna siiyay baa naga dhaxaysa ciideena naga dhaxaysa calankeena adduunka ugu quruxda badan baa naga dhaxeeya calankan waxaad ogaataa hadaada ku dhalanin ama hadaada ku korinin ama hadii aadan maxay tahay dhalatayba iyadoo ay qub iyo qac socoto awooyaashaaba usoo dhintay ehelkaagii hore usoo dhamaaday Soomaali lama dagaalamin gumeystay la dagaalameen kuugu xoreeyeen dhulkuugu sameeyeen magac kuugu sameeyeen af kuugu sameeyeen taa xasuusno qof kasta oo Soomaali ana taasan ku baraarujinaya walaalayaal macaaniyaal sheerka ilaabinina message-keena waa inuu meel walba gaaraa qof walba page-kiisa ku maxay tahay share gareysto dadka aan nala socono programkeena la socon bilid page-kiina galiya si bulshada kale ay noogu soo xirmaan midnimo qaran waxa iskale adiga waxa iskale inaga waxa iskale inagoo dhan midnimo qaran waa barnaamij ku saabsan ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay midowdo
برنامج كان وحو كسابسن yahay inaan ummadeeni mugdiga ka saarno inaan ummadii Soomaaliyeed mar labaad aragno ayagoo hal ah ciideeni iyo calankeeni iyo diinteeni aan ku badbaadsano insha Allah bilmillahi kariim ودني دابا سودو ولالكيغ علي سودو انا كو سلامايا Thank you aad oo mahadsantiin dhamaantiin aad baa u mahadsantiin inaan dowladahano nabadooleyaane inaan dowladahano gobaad aad baan kuu salaamayaa soo dhawow maasha Allah gobaad waa lagu waayay wuxuu yiri maba doonayaan inaan degno yiri yaan doonaynin waxaan doonaynay kuwii qabiilka ku qaraaban jiray oo maxay tahay wuxuu rabaa inay aynu dilna aan dagaalno kuwii qabiilka waa qolona loo soo adeegsaday waa dadka yago aynu dilna aynu dagaale dadka yago aad baa u mahadsantiin dhammaantiin waa u jeedaa intiina sheer garaynaysa qabyaalada aan ka digtoonaano insha Allah bilmillahi kariim tan halkaana dhigtay waa qabyaalo tan dhulkeena la dhacday waa qabyaalo tan caalankeena dhulka dhigtay waa qabyaalo qabyaalada aan ka sidii Ilaahay yiri kaliya aan u isticmaalno eheladaada ogow ehelkaaga soo dhawayso laakiin don't abuse it ha isticmaalin ha ku dagaalamin dadkana ha ku leynin waxaanan oran lahaa nabadooleyaane dowladahano ayaan doonay wuxuu yiri kuwii gumaysigu diran ogaa waa waxa hadda haysta dad baa maan walba dadkoodu yimaado guba oo qarxiya qolaas soo adeegsatay qoloon baa waxay ku tiri guba dadkiina oo dhameeya lacag baan siinayaa xoogaa yar baa la siiyaa laakiin neeshinki dhamaa oo ka dhashay neeshinki dhamaa Ilaahay ka beeray ciidii quruxda badneed oo Ilaahay siiyay ayuu baabi'inayaa waa kuwaas exactly heestaas waxay sheegayso kuwii gumaysuhu diran jiray u dhahay gumaysaha dirto qola rabto wadankeena inay qaadataa diranaayo maan walba xoogaa lacag loo ballan qaadaya bamba isku soo xirayaan neeshinkooda dhanay rogaayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hana daba qabto Soomaaliyeed Ilaahay hana daba qabto laakiin hal dadaalo walaalayaal insha Allah aan dadaalno Ilaahay dadaalu yiri dadaalkana Ilaahay ku nuguma qadinaayo laakiin waa inaan dadaalno haddaana dadaalinin waxba inooma hagaagayaan haddaana dadaalinin wax hagaagaya malaha Soomaaliyeed calankiina iyo ciideeni
aan u dagaalano aan caawino aan maxay tahay dadkeena isu keenno aan ka weynayna qabyaalada kala faquuqa ixtiraam darrada lagu haayo dadka la yasaayo ha la joojiyo qof kasta oo Soomaali ah waa ina la mid ilaahay ba diinteenin mid naga dhigay ilaahay ba muuqeenin mid ka dhigay ilaahay ba kalarkeenin mid ka dhigay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa naga dhigay nation oo qoomiyad ah oo meel ku nool taaha loo noqdo inta kalena taraashka lagu daro taaha loo noqdo ayadoo la yasayn qof Soomaaliyeed ama qof Soomaaliyeed dhulka la dhigaynin walaalayaal taa uu noqono insha Allah bilmillahi kariim aniga intaas iga dardaarana maanta inta ayaan idin leeyahay insha Allah bilmillahi kariim page kana share gareeya maxay tahay barnaamijkan share gareeya nalana xiriira nagu soo darsama waa inaan noqonaa strong midnimo qaran oo maxay tahay dadkoodii wacdiya oo wax fiican u sheega intii dhibaato jirtay adduunka oo na soo martayna waxaan ku dareynaa tiraashka waxaan ka bilaabaynaa hadda ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri halkaas ka bilow gadaal ha fiirinin wixii hore u soo dhacay iyo qolo la soo baabaasaday iyo qolo isliqday iyo qolo isqalatay shaqadeena ma aha waxaan hadda inagu aan u taaganahay midnimo ummadii Soomaaliyeed inaan helno qaran buuxa inaan helno diinteena iyo dalkeena ciideena iyo calankeena inaan mid u noqono insha Allah bilmillahi kariim ciideeni iyo calankeeni iyo maxay ta qarankeeni inaan mid u helno iyo diinteeni walaalayaal ayaan hadda xooga saarayna insha Allah bilmillahi kariimna wixii wanaago Allah subhanahu wa ta'ala laga bariyo lama waayo aan dadaalno kulligiina dadaalku waxaad ogaataan waajibku aniga kaliya ma saarna walaalaheena kale halgamay ma saarna kulligeenu saaran yahay aan kulligeen halgamno u halgamno ciideeni iyo calankeeni iyo qarankeeni iyo diinteeni iyo ummadii qoomiyad ahayd oo iswadatay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala halka meel ku beeray maxay tahay dhaxalkii awoogeen iyo calankeeni loo soo dhintayna waa inaan maxay tahay meesha ka qaadnaa dhulka aan dhignay oo aan taalooyin u dhisno oo hadda kow nolosha ka bilowno si ummadda dambe aayaha dambe saqiirada hadda dhalan doona kuwa sii dhali doonaan ay aayahu u helaan because inta badan dadka aniga hadda loodkaygii oo kale waa dadka cidlada ku baabaysay meelaha u wafoflaayeen wadamo kale isaga koreen ويوانع دتك مساكين تو هو دنك جوجا أما كوا دلنا دونا هذا يكوا future كده بي إنه وحنا أنا مرنا إيه مرن إنه هلان لايف صحة إيو وضن صحة إنه confuse نقول نسيد المها وضن ما دام كل شيء أو confuse كا أو محن هاي أو what happened to you وحتى تاريخ ذا الهو قريكروفي عن مرة يكرنو هذا ما أنت إلى دقالة منها وضن كلام الدرس كم يقول رباحة إلى دعلا المها وحنا كل هو ها وضن هبل بيها هو سي وضن هبل بالبر رباحة نقول فطي أساس نوقله أساس نوقله معها هذا وشيء إن أدرك إزدلما وشيء mid kale ila kala raay dilema u sheega walaalkay kala dilema u sheega waxa dhan waa wax ilaahay baan ku dhaartay xataa qof aan looga sheekeyn karin wixii nagu dhacay waa wax foolxun baan nagu dhacay Soomaaliyeed adduunyada wax ka foolxun ilaahay naga haayo maba jiraana u maleynaya aniga because ummadii oo dhan aan nala yaabano waxay le wadam kala la dagaalanteen waa may Madiina isku haysataan waa may ma two different color baatihin waa may maxaa what's going on may there is a tribe something called tribes الدنيا ده أنا أكيد سنو ترايبس ويقانا قبيل وكل رقبان وضمنا ويلهان جرين لكن ده وحي أركان وحنا سنسة إنه تاي وهراء وصعدين أنا قلنا قف ولا كان أو نقي ما بدل نقاي بدل متعلم نقدين بدل نقع علمي بدل بروحان أو قلدي واي موجود أنت أنسى كجرنو آية مستقبل من ملهانا إلهي إذا أبرتك بقى صومالية هذا إذا بقى بتاع kuwiina wadankii jooga iyo kuwa maxay iskuulada ku jiray dhalinyarada oo soo kacaysa hala dagaalamaan in qolo walaalkood wiil oo iyo gabar walaalkooda qabiilka lagu sheego oo la dhaho waa naga liitaan oo lugta sare waay wax halkaana dhigoona baabiyay waa xaq darrada ummadda masaakiinta laga galay wallahi wax kale ahayn xaq darrada laga galay waay xaq darrada laga galay ayaa Soomaali kulligeena isu qalqalateen ilaa hadana la degil aanahay ummadeena kulligeen hal aanahay hal neeshin aanahay hal Soomaali aanahay hal walaal aanahay kulligeen DNA geena waa isku mid gabar ila shaqaysa بمعنى ذي شيء صحيح قلت لي DNA ده Soomaali وحالي waa very easy to find نين أو أبيه سوحو قالي محيط ميلهن جزيرة ده نين كوا أمريكان ليجي سبا وحال جهة Soomaali وحويري جزيرة ده سأبها كيمد ووجيبها كيمد جزيرة ده ولكن جزيرة ده كيمد ليجي Soomaali بالله جهة ninkii waa African American laakiin dhigiisiiba DNA marka la qaaday waxa laga helay Soomaali inuu ku jiro taariikhdii uu soo baaray awoogay baa jasiirad ka yimid buu yiri awoogaygaasuna ninka daartu waa Soomaali inta taagan awoogaasuna Soomaali buu ahaa kulligeen marka waxaan ka soo wadaa kulligeen isku mid aan nahay dhigayga maanta intiina meesha ku jira hadii la qaado iyo dhiga maxay tahay walaalkaaga kula socdo seematiin
lama dhahayo dhiiggan waa dhiiggii oo qaaliga ahaayo lugta sare dhiiggaana waa kii lugta hoose waxay dhahay ma jiro wallahi waxay dhahay ma jiro dhiiggiina markii la baaro hal leetihiin dadka markay arkaan hala u egtihiin wax oo kala duwan ma tihiin afrikaana tihiin soomaaliya tihiin markii muuqiina iyo hadalkiina la arkay diintiina isku mid ah siitiin isdaba qabta soomaaliha isdaba qabato waxaan idinkaga tagayaa walaalayaal waa walaashin midnimo barnaamijka midnimo qaran waxaan idinkaga tagayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa soomaali inuu qalbigooda isu soo celiyo inuu mideeyo inuu naga saaro waxa nabaabiinaya laba qof oo Soomaali meel hadda isugu timaado waxay kuma heshiin karaan ayagana wax kale ku jiro reehebel ay raadinayaan reehebel beela reehebel waa kana baabiiyay reehebel god ku rida qabiilka waxaan rabnaa ruwaayad in la sameeyo qabiilka duuga oo tacsiil loo dhigo oo run ah markaan run ah hadda ka hor la duuga la yiri laakiin hadda run ah u baahannahay wallahi dadkaas aqli laha duugay because dadkaas duugay waagaas duugay waxaan u maleynayaa ka hor baa dhibaato nagu dhici lahayd سارة أدبان كو سلام يا سودو ومعانتو دمانتين ولا ليل وان سلام يا إلهي سبحانه وتعالى انتي نوناق جعل هايدين كرديو آخرية أدونا هايدين محيط حافظو نلا الصعودة برنامج من مقارن ضد بدن بان قبنا لايف سو قلي دونا وضمك لان كسو قلي دونا الدنيا دا تعالى دا دانا نجوغنا إذن كنا نقصو بيرا هلا آموسين كرتي دادا يدن نما دادا هلا آموسين وحي أدعي دادا وهي لن هيدي عالان كاقي قروح دا بدن waxaad ugu hiilisaa afkaaga hadaad wax kala weydo waxaad ugu hiilisaa page-keena oo share gareysid hadaad wax kala weydo waxaad ugu hiilisaa ina programyadeena la socotid aad baan idin salaamayaa aadna waa idin jecelahay walaashin midnimo qaran barnaamijka midnimo qaranna waa barnaamijkaaga waa barnaamijkayga waa barnaamijkeena barnaamijka midnimo qaran waa barnaamijkaaga waa barnaamijkeena waa barnaamijka kulligeen taana la socda insha Allah bilmillahi kariim waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Thank you all of you intina idaawaneysay sheerkana waad ku wada dhufateen aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan intay galab u tahay assalaamu calaykum